Murtida lagu sifaynayo sirarka baxaya ee arliga doorka simika inaan dhalinyaro ah iyo dadka waxba lama magacaabo inaan dhalinyaro ah baa xogay Dubai buu ku yar maqnaa horan waan uga sheekeeyay ninka kadibna xogay suuqdunihu dalka la yimid saaxiibadii baa soo dhaweeyay guri aroos oo markaa 40kii ku jira ayaa loogu qadi sameeyay aad baa loo soo dhaweeyay dhalinyaradu maanta isu jeceshay kadib markii la soo dhaweeyay wuxuu yiri war bal xakee qaaliya wallahi bartasaafiga iyo meelaha gaafanayo aduu ina geebaa leeyay goob baa laga soo qaatay qaad noocan leela damba musbaarka ah oo intan dhexe markaa wuxuu maanta ragii nin iyo kiilihiina qaata waa nin lacag haya markaa haseeshe ragii markuu yartay 6 kamid oo isneef ogol ayaa la isugu soo haray guriga arooska hada jeer gelin hore sheekada way socotaa ma taqaana jixda la guraa saacado dambe la isla xayilaa marka dambe aamus sidii riyo ma taqaanaayo xaslay ayaa loo dhaqmaa haseeshe goor dambe inankii oo dasho qaadka ka raago 6 sano dalka ka maqnaa ayaa markuu nus marayo kulay dareemay wuxuu yiri waryaareen rugby ishu ka shaqeeyay dibra baraarahoodii waniyo dabba la isulay buu waxa la war qaadkaad ka raagto ordo meelo xamaam ku galay biyo showdeed dabayshu babisayo taangiisana ku jiray ayuu barta dhakada iskaga furay hada jeer qofku markuu markaas ama kuliyay biyo cagaha laga soo bilaaba dhakadu iskaga shubay inuu ku wareeray markii wareey shaar buu soo qatay gamcuhu soo galiyay dusha uu ka soo baxay guriga maxda xamaamkii halkan daarada guriga laambad weyn baa ku xiran shan dumar ah fadhiya gabadhii guriga lahayd xabariyadteed intii la shaqeynayay qaaru soo wareegay weelkii dhoobada inankan maanta lagu macsuumay way masaxayaan maryana way taaweedaynayaan inankii soo de wixii banaanka dhigay ayuu ka soo baxay dadka dumarkii oo naxay oo shoogay ayaa xagga gidaarka u wajiistay dareen wuxuu inankaas iga sheekay wuxuu waxaan maqlaa iyagoo xamanay waxay leeyihiin miyaanu inankii maanta ahayn miyaanu inankii la macsuumay ahayn ma xanuun baa u qabsaday hada waad aragtaa intaas markay islaadaan baan guriga galay haseeshe marba ku qosla wallahi asal ma warqay waa maxaa dhahay waan maryaha gimay ismi inna la wariya wallahi xamaamkan ku soo ilaahay buu mu oran bal marayaro kale saaray wuu noqday haseeshe dumarkii uu sii maray xaqoodu eegay wuxuu yiri excuse me please ka raali hada walaal mar dhaw tooraan uu qaban baa hormar ilaahay ma kale uu qaaway nin la oran jiray balanyo oo dadkii koonfurta ah askarta ka tirsanaan jiray gumburaha ayaa wuxuu ii dhiibay qaad uu soo dhacay qaadkii buu yiri iibi anigana joolis baan qabo inaan caana cabaaba gumbura leeygay bariga deegaankeygana ku wali jiray jaadkana waa laga soo fogay jaadka waxaana laga fogeynay dama wixii casas iyo hilib iyo wixii kala oo dhan laakiin qaado ugu daran ayaan meesha ugu tagay aagada caanaaba marka la keenaa oo aan cabayo in loo baan lahayno geel igu bedelaa xabaadan ku dalay habeenada kamid ah ayaan qaadkii fara badnaa oo maqaaxi xadiis baa laga akhriyo maqaaxiya oo ay tahay ma taqaanaa dadabtii aan fadhino ayaa dhinacana laba qoriyo xabaa waaweyn ka saaray dhinacana triigi baa iga yaala kadibna show waan waday tiradii habeenka ma cayim karo qaadkaas waxa kaayada rag badan marba godladana u kacaan goor ay tahay saddexdii galabnimo dadka si kala rawaxayaan ayaa waxaan damcay inaan kaadi tago kadibna waan dhaqaaqay waxaan dareemay markaa yani jabaqda dadka kaadida kala fogo waan waxooga yar lugay wuu arkay ninka gumburayo iyo bilgooda intay isu jiraan banka bartankiisa markaan marayo ayaan kaadidaydu u fadhiistay waan markaas leeydhay ku dhacday markii aan kacay baan magaaladii u eegay mise tiriigtii baa ka haysa waxaan ka socdaana ugu yaraan 7 kiiloomitir ayaa markaa magaaladii ka lugay dabeetana waan soo noqday maqaaxidii oo la rabuxinayo oo alaabtaydii niisuukeega jimaanay wuxuu yiri xagaad qabatay waxaan mid halkan lacagtii qaadka ka soo qaadanay ninka lacagta qaadka inta lagu maqnaade xagaad ku maqleen sababta goorda baan ku wareelay waan marqaamo ordu dhibaatadiisa kooba taasay talabaad raacda iyadoo way iska muuqataa wax weeyaan habeenada kamid ah iyadana qaad
laii dhiibay qaadkii anigoo iibinaya ayaan deetana mirqaankii horta waxa weeyaan waa waaliyun marka aad xad kala dhaaftay qofkii mijiin 2 3 4 ugu dhaafana ayuu mirqaankan la sheegaa imanaya waa haddaba mirqaankan waa maxay marka la qayaxo ilaahay libid buu ugu tagay maskaxda dhiiggaaga inay ku dhacaan dhiigga xawliya ayaa kacayo dabka iyo shaaha kulul iyo nidaamka isbedel baa kugu imanaya marka maskaxda fikir kasta oo kaa iman jiray ood ku meel maraysay qalad buu kaaga imanaya sida qaladka ragii horta waxaan tiriyay ilkahayga hoose ilkuhu baan tiriyaa 7 midhoon baa ka dhigay dabeetana 3 nin ama 4 nin ila fadhiyay hebelow ilkahaaga hoose waa imisa maasoo nin walba gacanta saa idhaahdaa kawla waa lix warniyo yaabkan waa adiga maxaa 7 ka dhigay kalbadii tiriiga aan ku sameynayay baa taala xabad ilkihii kamid ah ayaan bartii kaga bilaabay gag waan buriyay sida runta ah markaan xabadii iligi buriyay horta marka hore waxa kii horeysay in cawdii baan ka saaray bahal sidaas saa ugu waday waxaan ka fartayday halka kala jaxna bacdi gashay markaasaan kalbada ku bilaabay markii daba maxar baan la doontay sida runta ana ilkaha waxay ahaayeen ilkii cafra mara midga dhicmaan sidi hadda ilkahayga saasi 60 mid ku dhanyi laakiin iligii maalintii aan la burburiyay ka saaray wax badan ku wadaatay hadda way muuqataa waxaan deetana ku dhacay barkad baa markii dhiigii istaag waa iligii saaray xinjiriga yimaadeen ila xoog baan ku kululay ayaan barkad galay barkadii baa deetana naqaskaygu joojisay haddana xabad irbada baa laygu marka barkada mood ku dabaanaysa waxaan sii dhiigu ha ku qabo barkada kale waana salaada was qaboojinay sababta ma maalintan dhibasho ugu dhawaayay aan ku baqtimin barkada dhexdeeda laakiin waxay lahayd birahan loogu xiro hiisha loo dul saaro kaasaan qabsaday marka gali ciidina arkay ilaa dirqi salan kale gurgooda baa kaga soo baxay horta mirqaanka ay dili gaarayna kamid buu ahaa waxaan si iligii dareemay 5tii galabnimo markaan toosay aan carabka sidaa idhi ee meeshaydii banaan arkay ayaa warwarka iyo afkaygii bishilna iyo farxumada maanta igu timid markaasaan dareemay waxaad jirtaa habeen aad mirqaantay sidan sheeko ku maqlay oo aad istiri muxuu ahaa yar jimicso way jirtaa jaxow laamay cararto way jirtaa runta waana sheeko xaqiiqo dhacday barnaamijka xogogaal baa laga sheegay muxuu ahaayay jaraa'iladii la oran jiray xorriya ayaa lagu soo qoray calaamadaheedii baa iga muuqday marka ilkaha maanta ay xidhanay waa ilkii habeenka iga daatay 2 feerood baa jabay 9 qodob ee wajigayga imika ku yaala ayaa habeenka la tolay habeenka qaadka waxaan la iibin jiray markaa nin Allah yarxama caawinaga hooseeya abdiyeetiya loo jeedo walaalkay buu ahaa dhawaan buu dhintay markaa waxaa ka iibsan jiray qolyo madaxtooyada iyo dad noocaas ah qaad fayaan loo oran jiray buu aad u kulul 30 mijood bay noo dhig haseeshee nimankii meel kale qaad ka qaateen si uu yaaleen buu lacagtooda bari waan ka qaadayaa 30 mijood xareeyo 2 mijood bay igala baxay sidii baan ku tagay waxaan tagay siinay xaafadda oo cidla markaan habeennimadkii 2 habeen hore soo jeedo qadon waan seexday goor duhurkii ayaan soo toosay video nin loo oran jiray 16 baan imid qolo meel bariis iyo wax ku cunaysa waanu imid bariiska waan la cunay waxaan sili bas bariga ma jirin iska laweyn oday kaliya loo jaab ayaa bas keeno koba dhinaco isaguna mu badnayn waxaan damcay markaa inaan caleed iskiir jiro 2 mijood jaada meesha ku cuno hasan shay musalsal wii charge markaba diqsinimo ku ridaya waxa ku ridaya ma taqaanaayay shay kasta oo aad hawlood lahayd uu ka fariisinaya ama shay kasta oo meel labi hadaad haysay oo markaa qaad cunto tusaale gabar baabada fadhida waa qaad nin xaraareysan baa u imanaya wax yar oo hadda inta amaana aad ku aatay ama hooyada caanaha hadba jabada ku haysta naawal mijina ama way u diidaysa na laba siibaad oranaysa ila maal ku faxay dadka qaadkii baa waxa niman ila joogay 12 mijood jaade baan ka sii markaba deeqsinimada ugu bilaabay markaan laba cunay qaadkii 8 iyo 10 mijood oo fayaana ayaan halkii kurka kaga gooyay kaliga ilaa 2 duhurnimo ilaa iyo 8 iyo wax la markaa ama 7 iyo barkii meelaha kadib markaan soo baxay dareenkaygu wuxuu siiyey 92 October baa ahayd 17keedii wuxuu siiyey inay dhaxani jirto markaa rayigii saliimka ahaa ee maskaxdayda ka soo burqanayna wuu lumay oo 18 mijood baan cunay waxaan ordaano waan ahaan joogo sports commer damireer baa soo aad baan u dheerin joogo orodkayga kadib waxaan maskaxdayda igu soo dhaatay waa dhaxan waa inaad sii guclaysaa ilaa iyo xaafadii hoose Axmed Guri hase yeeshee intii aan lugeynayba 200 oo mitir oo dalacada siinay meesha la korkeeda ayaa waxaan xasuustay bari ayda dhingada shalay aan ku qaadan jiray aan ku dhuftan dheerin jiray 5 state kii damireergana waxaan dabeetana sameeyay
bal inaan waan daalay waan isla markaa ayaa maskaxay soo turtay bal orodkaagii berigii malaa waa deeqaadkaa ku dilo waad gaboodiyey bal caawa tijaabi baan sin hase yeeshee xawligeygii markaan iska qaatay cod dad soo baxaya baan maqlay nasiib darra waxaan arkay labada koonayaashoo sigaar cabayo dab bay weydhaafinayaan ila waa maskax mirqaanto aan taydii saliimkeeda fiicnay joogini mid qaladaan ku shaqaynayaa waxaan si labadani way kala fogeyna dhexmar najaxow nin shaal xidhan koorkaaga u eegoo bunniya ayaa labada nin u dhexeeya show labada ninba nin shaal bunniya xidhan waana madow wuxuun baan ka fikiro wadada haddaad kora uga leexto waad jabaysaa labada nin dhexmar kiibaa ku dhacay dhexe qadaadkaasuu isku taagay ushiisii wadada si socotana dhagtaga si wale qam weydiiba 9 leer oo kala kaanay anigana ma laha iga baxe ila 9 ka qodob baa halka ilaa halka xiribteeda ayaa dilaacday laba feeroodna way jabiyay laakiin feeray waxa moogi saacbada intaan ku cararay ayaan kada loobsaday ninka agtiisi labadii nin intay wadada hareeraha uga boodanaynaxeen ay leeyahay wariya Ibrahim war maxaa kugu dhacay dabadana ninkii odayga halka ka taahay gudcur baa markaa waa gudcur magangooyo tirigna waa ka soo baxay hase yeeshee maskaxdu waxay ku lumaysaa oo aan madow baad carartay iyo wadada miyaana god leh waxaa soo dhan mirqaankan bay ku lumaysaa mirqaankuna sida runta waa wali la jideeyay يعني qofkii wuxuu qarinaya waan waashay kadibna waxa dhacday labadiiba budad bay sitaan waan u fiirsaday waan eegay war Ibrahim bay ilaa ka sokay imoodaya ninkii la socday waan ka talaabsaday ciribtan ku dhuftaano labadoodii nin waxa la weydiiyay ninkii baa qaaday waxay yiraahdeen ninkan jin baa dirday waxa ku dhacay baa la yidhi Saciid bin la socday waxay dadkii ka dhaadhiciyay ninkan jin baa dirdiray bay yiraahdeen aniguna xawligii waxaan ku galay maqaaxi Allah raxmah haystay gabadh loo jeexay magaalo dhexdan shaarka iskaga sii xiray markii aan dareemay waxaan si dhidid waxaan ka badana waa maxay waxaan ogaaday inuu madaxii kala dilaacay kadibna shaarkayga bixiyaan oo urday hadana shaar ku xiray shaarka jingada halkii laga furay dhiigaygu halkaas oo kala ku dhacay markaa habeennimadkii markii la tolayay ee la ilaaha ma taqaana war yaa ku dilay ee dadku xashada ma khamro waxaan weligeeba arag iga urinayeen ana qaadka weligeeba la ima dhaafo laakiin soo runta qaadkaas dadka marqaanka la sheego ugu badan ayaan ahaa waxaan ku yiraahdaa ninaan cidi dishadeedaysa ana ninkan jiray inuu go'ay baan u maleeyaa ala taxal waxa la soo qaaday ninkii baa dhakhtarkii la keenay oo aniga caawa dhan ilaa yaabana laakiin la tolo markaa la iga qaaday waan isweydaarinay waxa ninkan maxaa ku dhacay jimba dirdiray bay leedahay halka ku dirdiray dalacada siray imsadii ahayd todobadii barkii ahayd sidaas ordo ninkii subaxii ayaa habeenkii waa la tolo madaxa baran waan sunnay anigiina waxaan imideen feeri baa ayay burburay kadibna waan sunnay waxa la yidhi ninkan ayaa anaa ku jiray wuxuu arrimaad jeeline aniga jimbay dirdiree oraad erga tag kaasina horta mirqaanku kaasoo ahaa markaa goormaad isku soo dhacdeen adiga iyo ninka aniga ninka waxaan isku soo dhacnay isagana sawirka eega sreeyga halka xasan cadde uu joogi jiro goobtaasaan isku nimay iyadoo aniga feeraa la sawirayo markaa ninka goormuu xaqiiqsaday markaa inaad adigu jirin ninkii uu xaqiiqsaday in aabaha saaxiib ahayn buu haastaa runta ah wax badanna muu noqonin laftigiisa oo halkaa wejiga ayuu isagu dilaaca ku yeeshay halka qadaadkana waryar buu ku yeeshay saruntaan inaan faam lahayna wuu ahaa oo waa aad baan soo aqoonsanay markii dambe laakiin waxa dirqi laga dhaadhiciyay ninkan aad jiray anaa jiray laakiin adigu markii waad soo turteen ninkan markii waan jiraa waan ogaa halkaasoo waxaad moodaa inuu mirqaanku way iga yaraaday duqadii azuwaka nin odaya oo odmaada dhalinyaro ah oo gel jira waliba ahaa ayaa soo muddo qaad ka mara qaadku wuxuu kugu dilaa markaad waxoogaa ka maqan tahay ee dabeetana maalin aad bilowdo weliba qaadka habeenkaas soo haray haddaad cuntana mirqaan siyaada buu lahaa kadib wuxuu ku qaylay tuulayar bambay ku taala kadib wuu ka lugayay show reerkiisu wuxuu jira kiiloomitir iyo badh laakiin mirqaankii labada mijoode baarixiga daamirugu cunay awadii ayuu show 4 kiiloomitir jaray u dhaafay reer kale oo aan qoyskiisii ahayn ayuu galay ma gurigi assalaamu calaykum gabar baati wa calaykum assalaam waxay agtay nin bulshada ma taqaanay dhigidsan soo lugeeyay dhibaataysan diifi ka muuqato waxay filaysaa inuu ama baadidoon ama su'aal weydiiyo laakiin hadalkaba muu samaynay halkan uu ku tuuray 2 kiilo sinkuru soo go'a ku quntanaa shaarkii baa la baxay halkan uu gadaanka u suray soonkii buu la baxay yacaygu ku tuuray dabkii buu israaciyay waabu ololiyay fanuuskiina wada lacday gabadhi waxay u faahantay markaas oo ilaahay diruuc ku ay ma taqaanay u garatay inuu ninkii in ay Umar jaarka ahayn nin waa shay inuu yahay markaa
hase yeeshee midba kasii darantee wuxuu sameeyey digsi yaro faracada ayaa ninka halkan loo dhigay wuu qaaday dabku saaray wuu diiriyey wuu ka jabqiyey fuudkiibuu ka miiray wuu eegaagay dina dabadeeda waxaa laga soo nastaa bisada ayaa halkan caanaha odayga loo dhigay loogu bedela kii wuu la soo daadegay wuu ku darsaday wuu iska cunay gabadhii yaabtay haddaad waa hesho bilaa ku dila ma ilmahaad la boodaa ama kaad iyo yaab ilaaba yaab u keenay gabadhii waxaa kaga daray mar allaaliya markuu dee inta lagu sii fadhaqo wuxuu xoog badan leeyahay u dhiidsintay de kole nin qayrana waad garanaysaa marqaankiisu xogta yareed baa hayso dee waxaan ku leeyahay xaajo kalena waa maagan yahay halkiiba dabeetana isiri biyo kuma fila yara meydha dee aan xoogaa dhiidka lagaa oranay dee ila waa xaaskiisii waxba ka qajin maayo wuxuu soo iska yar laamaloodaa intuu feniskiina saa iskaga yar gudbay hal yar ayuu tashti halkan yaa la soo qaatay killigii shaahii ka dhaqdhaqay daasad c b c halkan hambiraya saaran buu kaga shubtay horteedaaba gabadhii islaameed ku maadhay halkaa markay xajada maraysa gabadhii naf la baxsatay waxooga yana waa diyaargarooba saabisir waa kaa deetana way carartay gurigiisii bay tagtay laba yaroo walaalayiin iyo aabihii baa ardaaga hurta geela waar ka kaca war ninkii cumar waa sheega soo galay waar odayga cani yara buu ka cabay waar cashadii yareed buu ka cunay waar hortaydii buu ku maadhay waa la soo baqash ilaa odaygii ilaa reerka waa saaca gabadhii soo saartay ninkii ow halkiibaa markuu da u maydhay ayuu soo soctay gabadhii gobashii ay ka kacday ayuu iska fadhiisto cadab iska qadqa way iska mirqansay weli isma oga ilaa imaka xataa caruurtiisana caruurtan way ka farabanto qaar baa dacdo ku soo dhaafay waxaa tirin maayo eegi maayo alaabtan guriga taala uma kala socona dabeetana wuxuu sameeyey waa kaa yaabay uu kacay hayaa xeradii dibaddu istaagay xagan kalu istaagay xer arduu ka eegay bulcawskii ka eegay wuu soo fadhiistay wuu fikiray waa niimayow heedhe maxaa dhacay maxaad ku samaysay gabadhii kaaga dutay ciyaalkayga ku sibaysay way ku idaartay yaa waa niyo tolma jibci dhaweed bay kuwada inuu shiid siistay gabadhu ma intaasay ka cadhootay oo ma eriyata maxayd baa ku qabsan lahay ninkii yaaban bay tiisii soo horgashay waariyaahe maxaa ku dhacay maxaa ku dhacay aabbahay arka xageedna qabatay ilaa xeraarada kaaga war aabbahay reerka guriga ma saxmaa de waa kii reer cismaan ma kii ba gabartigiisa halla tulaayo ceeboobe nayahe nabaha garankayga usug baa hadda maska dhaxeeg nabaha iyo cagahaanta iga dusheeda iga sii suunkaygi masuude ona waxaan ku isoo mariya halan ku urusay kalinkida ku staa ayuu lahaa ona ninka cashadii waan ka cunay oo ani yareena waan ka cabay oo gardeeno waa taaya horta rag asaad aniga iga daraa nin odayaba maalin la yiri kaalay inaan soo bixi ninka odaygana aqaariyo wax yar biska cunni jir tatama inta basho kiilo u keenay bad bay giliyeen tatana goor dambe ayuu shub macawisna waa loo soo iibiyo deynanta weligeedii baa bixinayay tatana macawis sabaranda iyo dashaad iyo cumaamadii shwaanid ahayd iyo koofiye sinjiba alaab baa loo xiray markii la yidhi dawdageeda ayaa kiilo loo dhibay shub hoostana ka gogoyada cunana goor dambe uu 9 barkii maqaaxi buu ka cabi jiray koob batraada walaal waan iska tagay halkan New York geeseeda halkaas laga yar baxay kaalinta ina galan markaad joogto waa tawadada inay out kala baydha halka markuu marayo ayaa dasho fadhigi macawistii suunki kala siibteen macawistii baa hoos u dhacday dabeetana wuxuu bisii waxay fadaamada yar taadka bacdan lacagta la gashayo macawistii waa soo banaanka ku reebay Cabdiraxmaan kaalinta berigi la furay baa hayde awliyo furay nimankii bamka hayay hormaray salaamu calaykum wasalaam حياك الله هذا بورما نبض خير ولي اسمه سي هذا العجل عبد الخالق سن بفاش يابا شو يا سيدي سي حق لو ما شاء الله حق عبيس داوي سو ساوي odag intuu naxay ayuu allaade maantay waaleene eede in qaadon islaamka sii galiyo yaro gogoleed baa mala aan ku riixayo macawistii siibtay wallahi waxa fadaamad qaado cagtay gashanayay moodayay buuri waa bayna keen waa la raacay waa macawisteeda baa horta labada dhinac ka dhaafaysa cusbeeda bacdina wali ku taalo iyo in guntin qaada ayaa laga soo qaaday